kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho ku tagay degmooyinka Xardheere iyo Xeeldheere gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo kusimaha gudoomiyaha aqalka sare ayaa si wadajir ah u magacaabay guddiga saaxiibtinimada baarlamaanka Soomaaliya iyo Talyaaniga beesha caalamka ayaa soo saartay mowqifka ay ka taagan tahay wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Madaale ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga wasiirkii hore arrimaha dibadda Ciise Cawd ayaa ku hor yimid arrimaha ansixinta dastuurka xiriirka guud ee hay'adaha shaqaalaha dawladda Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay tallaabadii baarlamaanka Soomaaliya ay ku ansixiyeen cutubyada hore ee dastuurka dalka hay'adda NISA ayaa soo bandhigtay xubno ka tirsan shabaab oo isa soo dhiibay guud ahaan warka TV-ga Hilaac waa naga intaa